سارة عالمية كوشرت عاومش I think إن مرة سارة على أركاي سارة دمرلان ما كوشرته هولداي ويا أنا ساق بصو سارة دمرلان بها برقدره ساق بصو هبرقدر نفتح كذا عايز ما كسارة دمرلان أركان تقنتا فقنتا ما بكو تقاني يا كبر سارة دمرلان أنا كبري سارة دمرلان ساق بصو نكان أي ما حتى سيطع وفي أنا سألتها الحمر واي وكتاجر سنهاي وأوجها هاي الحمر وايد إن شاء الله هي هدان الجعشة أنا وكجعلنا لك أوجها هنا يجعشين ما شاء الله هي نونو لا وكلي أنت سنقول شيء جيني بقى ما سنتاي thank you هي هذا مدن هي والسلام وكاسة dadka reer magaalka ah waxay ugu jecel yihiin quruxda qofka reer magaalka wuxuu ugu jecel yahay gabar Soomaaliyeed oo istaroon ah oo ma sha Allah aqli badan oo ma sha Allah geesiyad ah maxay ugu nacayaan naag reer baadiya uraysa oo aan kalkaleeda iska dhaqi karnayo fatadeeda in nacaysa aniga war dadka reer magaalka aniga they love me ta idin sheegaya qof kasta oo reer magaal ah maama milyuun waxay doontaa ha walaaqdo dadku ayaga maaga laakiinse anaga maama milyuun waa jecelnahay kuleeyihiin ana waa jeclaha dadka aad baa idin jeclaha laakiin edab darro markaan arko eedrada waa diidaa saara cali u yeera waryaara kooxihii hoos u hadalka saara cali soo qabta so sidaasaa wax idinku sheegaya beentuna waa been horta dumarka idima soo qabanayo warka ma taqaanaan boqolkiiba hal ama labo baa halka ka taqab baa war taqaana sida wax loo sheego maamiye waa ku jecelaha waa ku taa wax ay jeceshiin male waxa ay taageertaana male haddii aan wax sheegana markaan qabiilkaaga saa in yar u taabto baad isku soo qanjururaysaa markaasaa sidii maangooyihii u uraysaa maangooyo urtu waa maaxay umul quruntaan ag fadhii jiray marka wiilkaas hadda wuu soo galay wuxuu yiri maamuliyun waa ku jecelnahay banaadiriyaan nahay ana waa idin jecelahay baan ku iri muxuu kaloo sheegay oo xun wanaag buu sheegay wuu isalaamay waa ku jecelahay buu yiri waana tagay waa runtiis way jecel yihiin waa rag aye banaadiriyo dhan afkoodu ku hadlay waana arkay suuqyada markaan tago maalin dhaweeyta gabaraa waxay igu tiri intaan suuqalkaas mool ah tagay baa waxaa la yiri maamuliyuna suuqa joogta wax allaaliyo wixii banaadiri ku jiray oo dhan iyo reebaraa waa soo dageenaa la yiri dhulkay u soo dageen maamuliyuna joogta suuqa been markaan idin sheegaya markaan ku arko suuqyada waxay ii ixtiraamaan maxaa kaa galay iigu istaagaan tukaan ay leeyihiin haddaan galo reebaraawa ama sharaafta reexamarka carabta qof kastoo af soomaaliya ku hadla oo dadkii koonfureeda wallaahi siday ii soo dhaweeyaan ma malayn kartid marka I know inay jecel yihiin habargidir markaan suuqyada ku arko sometimes waxaan dhahaa talow habargidir maxaa ii galay baan dhihi jiray waa idin jeclahay waa idin xurmayn jiray laakiin firiqo xunoo soo daysateen markaa inta halkaas keento aan habargidir wax ka sheego baa kulligiin oo dhan baarki rid noqonaysiin laakiin hadday noqoto jacayl aad baan idin jeclaha hadday sabood noqotona gabdhihii isabood gareeyay habargidir baa u taqaanayd baa ku jiray gabdho badan oo habargidiraa ku jiray waa markaan faktiga idin sheego laakiin markay saacaddu meesha xun iga saaran tahay waranka ha igu dhaqdhaqaajinina markay sheekadu meel xun iga marayso ixtiraama because 6 sano idinla jooga ixtiraam baa idinka waayay Soomaali haddaad tihiin maalintaan meeshaan idinku qabsadana baallaha idinka rifaaya hadda kuwaan caayayo soo ma jarteen maaha waan leeyahay ma jarteen waa fadaro hadda inta soo wada fariisaan bicay iga wada buuxinayaan qabiilkooda ma taabata qiyaamay kuu dirayaan Soomaalidu ana qabiilkooda ma daawiyo markaas habar waalan sharmuuta tahay hadda waxaas caayo dhan ma jarteen cabaar baan ku soconayaa ma jarteen ka sifiiriya wax meesha qabsanayo dhan oo caayaya waa gabadhayadii hana caydo ma jarteen kaba xigno car ha dhaheen ha ma jarteen waa fadaro naagaha nicib ma jarteen waa in nicib yahay ii fiiriya qoraalkooda hebliya meel igu qora inta hebla i cayda fiiriya car ha dhaheen magaca waa nala wadaagtaa car ha dhaheen ma jarteen ayaduba waa tahay car ha dhaheen car baysan kulligoodii wada caay ma jarteen waa fadaro meel kasta aan galo
waxa ay caayo waa ma jirteen waxa dadka iigu soo hormaro waa ma jirteen masuubo ummadda lagu dhex daray weeye soomaali ma jirteen buu ka degla yahay daarood ma jirteen baa kala kaxay iisoo qor waryaal wax alaal waxay qorayaan iisoo qor ha uslaysi daarood ma jirteen buu ka degla yahay munaafiqiin weeye soo wax faagtay alla qabiil jecelidina maxaa qabiilka ku jeceshiin oo idin siiyaa muxuu qabiilku idin siiyaa qiyaamihiin dhacaya kirada guriga bilna kaama bixinayaane bilna kuma siinayaane reasonka ah markaa qabiil maqashaan ah isugu soo kogtaan nimanka ragga ah oo qabiilka iskale odagaan hawiye ah nin buu ahaa aniga nin baa ii diidi kara daarood nin buu ahaa ma jirteen nin buu ahaa naagtaan xuntahay gudaha qurmuuna aniga qoqobka inta ii soo gashay caayaysa naa maxay ninku kuu yahay ma ii sheegi kartaa tuu ku qooyo wax kugu shubo oo ku rimiyo kaa tagaa qurmu kaasa loona soo qubayso ku dhaha energy baan u baahanaha markaad hadashid cabaar oo codkaaga aad ka baqdo inuu codku kaa xirmo ama nacnac baa la nuugaa ama malab baa afka lagu shubtaa yar wax macaan lahaa la cunaa kulle marka haddaan wax idin baray markaan qabiil soo qaado qasku muxuu idiin dhaqdhaqaaqaa dhushq muxuu idiin dhahaa maxaa qabiil iga galay maa dhahdaan maamulyin waa soomaaliyeed qabiilna kaba xiga maa dhahdaan nin inta iisoo fariista ma aragteen qabiil bay cayday qabiilka iyagaa cayday nin dhahaya ma aragteen iyagaa iskala qabiilka they don't care ay midda iisoo farabaxsanaysa hello gabar sharaf la haddaad tahay sida munaan ku ammaani lahaa muna muhiim waa aragteen waa cishadaa waxbaan ka sheegaa naya baan dhahaa car ayadoo muna muhiim weligaa caayaysa arag aniguna ma caayo laakiin wixii qaldan baan u sheegaa markaas ku qaldan tahay because perfect ma ahan waa ka weynahay kow ayeeyaanu ahay waa i taageertaa waa aan jeclahay waa gabar qurux badan ilqabata leh ishu inay u dhacdaan u diidayaa waa fact laakiin runba isaaqu kama xuma inaan daaroodahay isaaqu kama xuma inaan daaroodahay because waa carab ma og tahay inaan wada carabnahay ogyihiin hawiyaha waxay igu necib tihiin oo ii caydaan daarood inaanaa ka xun tihiin maxaa jira runba naag daaroodo markaa aragtaan qurux badan oo codkaraho waa xanaaqdaan laakiin isaaqu qof codkara hadduu arko kama xumaado because waa niman caraba carabta horta ma og tahay ma taqaano masayrka ma taqaano horta ciil aan idiin qabo hoogay nin iyo naaga soosa ayaan u gala war waa ayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaal caruur baa kula joogtee ilaa waa aabba ilmihiisa haysta maasha allah sorry walaala erey xun baan ku iri waa ka xumayaa ereygaas inaan ku idhaahdo because muraadiyo doob dareen baa dilay walaala nin anigu ma haysta ma ogtahay marka markaan arkay muraadiyo isla qulbaa gadiisma tiri waxaan u qaatay meel shaqa ka socoto in bay mistake aan ugu soo inaan bay mistake ku dhacay alla markaada nin lahayn alla maxaa dareenna dilay naagahan wada caytamaya maaragta wallaahi wabilaahi oo talaa qooq baa haya ya asmaa dahabo on doonta aan sii diyaarsada meesheeda naa bardaa waa gabar yaro haye hadda ka hor baan tan arkay hadda ka hor maku soo qabto maya haweenka isu keen horeysee caawa fiican tahay ma tukaanley baa tahay maasha allah xaggee dukaan ku leedaha way macaa Somaliland
somaliland hargeysa mise burco mise berbera 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 maasha allah ma gabar ciise muuse baa tahay maasha allah ciise muuse walaalahay baa ah caruur eedaday dhashaa ciise muuse caruur eedaday dhashay gabar berbera degan hargeysa degan baa ciise muuse eedaday aabahay dhalatay dhashay oo aadan ciise ah ya khadka inaga adag haye ku soco maamo khadka yar culus khadka adag ka baxo kusoo noqo mar kalaan kusoo qabanaya ya maamo ana ma halkan joogtaa wan xagee joogaa magiibu darisay gabadha codkeeda waxba laga maqli maayo gabar yar wanaagsan oo shaqaysanaysa weeye badan oo shaqaysanaysa weeye laakiin codkeedii baanan maqlaynin marka duriyada sharafta leh duriyada reer Sheekh Isxaaq bini Haashim dadka isku dhadhajinaya ee madmadow ee Soomaali iyo waxa la ordaayo sanuuda la ordaayo back up sameeyay nimankaas waa niman caraba reer Sheekh Isxaaq baa la dhahaa aniga wallahi inaan Soomaali i guursan nimanka reer Sheekh Isxaaq markaan guursanayay ee aroosyada ii dhigayeen ee taashka i saareen duriyada reer Sheekh Isxaaq bini Haashim ahaan baan u guursaday ma fahanteen laga daa ciyaarta wariyaar siyaasadda inaad odayga caloosha weynaayo Jabuuti haysta iyo alla wareegaysaan waxba irira iyo waxba bahalkiya iyo waxa la wareegaysaan oo munaafaqada ah oo siyaasadda ah naga joojiye siyaasadda beenta siyaasaddu waa siyaasad qofku raba ku raaco laakiin abtirsigu nimankaas carabi العربية السعود عربية إن السعود عربية أنا ما كنت حرم كسو جيدا ساعدنا وحا كسو علسان مدمدو إيو كسو العليا إيو أفريكا نو نمان كاس سعود عربية كسو جيدا حرم كإلهي بكسو جيدا مركب حاجة قادة كرتين الله أكبر ورا إنترنت كوي علسيا قفيا ويقوم سوق بنكرو مركب أصحابي horta ani Soomaali waxay ugu jeceshahay Soomaalida waxay ugu jeceshahay xaraabada iyo qosa wax reebaadiyaha horta waligood yeelood moogta wariyaha America hadda markaa tagtid showyaa jira la galo oo banaanka magaalada ku yaala oo dadku qoslo kulligii waa idinka wada qosliyaa dhex family waxay ugu jeceshihiin qabiil baa idinku talaalane awowga hal habeen kaama qoslin aniguna intaasoo jeer baan kaa qosliyaa beentayba because aniga qofka iga qosliya aniga waxaan jeclahay ninka la yiraahdo Tony Berry oo Mareykanka African Americanka baan waxaan jeclahay showyadiisaan jeclahay waan dhageystaa madiya iyaa ka mid ah marka waxaan u dhageystaa waan qoslaa كومن عيا أو مقرأ كان تاي مدو أجردي سقار با يوتيوب كتيرة أو مارت شوركت عيا أو مقرأ سبسكرايب بنسارة why because Somali wax kasta oo family taraama la ordaayo iyo qabiil iyo qurun igama qosliyaan in iga xanaajiyaan mooyaan laakiin ayagu iga qosliyaan marka qofka ka qosliyay uu kaaga qaalisan yahay marka free baad maalin bay idinka qosliyaan marka reebaadiye kuwa ah